waxa muddooyinkii u dambeeyay cabashooyin ka imanayay gaadiidleyda kala duwan ee gobolka Togdheer kuwaasi oo ka caawinaya shidaal xumaan ka jirta guud ahaan gobolada Soomaaliland taasoo ay sababtay shidaal xabagaysan oo lagu kordhiyay haamaha shidaalka dekedda Berbera shidaalkaas oo dhibaatooyin fara badan u geystay gaadiidka haddaba shacabweynaha iyo sidoo kale gaadiidleyda magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa qayladhaan baan u diray xukuumadda uu hogaaminayo Mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoona dhalay wasaaradda ganacsiga Soomaaliland waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan waxaan halkan ka cabaaraynaya wasaaradda ganacsiga oo ah mid aanan la socon dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka socda waxaynu ogsoonahay in batroolka Jamhuuriyadda Soomaaliland niman shirkadaha lagu wareejiyay shirkadahaasi waxay keeneen shidaal gawaaridii ku keenay cilada waaweyn gawaaridii aad iyo aad bay nooga gawaari far badan baa naga fadhiistay hadda tan meelan shidaalka ka qaadano waanu laanahay wasaaradda ganacsiga ilaa hadda kamaysan hadlin dhibaatada haysata gawaaridii cashuur bixiyaha ahaa ee lacagta laga qaaday sababtoo ah dadka gawaarida isticmaala laba dakhliba ayay bixiyaan oo ah kan liisanka iyo waxay bixiyaan iyo kan gawaarida haddii aan gawaarida shidaalka isticmaalaysa aanan la eegin oo aanan loo keenin wax lagu baaro shidaalka la isticmaalaya waxay keenaysaa in dakhligii ka soo xaroonayay uu hoos dhac ku yimaado waxaanu maalin dhaweed laga dhawaajiyay in ra'iisul wasaaraha xamar uu ku leeyahay sheer haamaha shidaalka waxaanu ogsoonahay in la diiday qoladii keentay in la baaro shidaalka marka waxaan leenahay war dadka bulshada ha loo daneeyo oo canshuurun iyo dakhliga la eegine dhibaatada haysatana waxa laga qabto waniyo shidaalkan horta aad iyo aad u magaaladu saameeyay dhibaato weyn oo nagu hayadana xagga gaadiidka niyow maalin walba gabadheeda geerish bay taagantahay waa la furfurayaa waa laga shaqeynayaa kharash dhibaato lagu soo kordhisay marka dawladda waxaanu ka codsanaynaa inay aad iyo aad wax uga qabato shidaalkan xabagta leh magaalada ay ku soo deysay gabadheedana wax yeelada ku soo deeyay war dunidii waxa soo galay shidaal xun gaadiidka dhammaan waa wada geerashadu wada daadsan yahay anigu mid baan watay geerashkaasu yaalla waa kharaabo nimankii geerashka waxna waa kharaab gaadhiga waa la tuuraya madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa nimankan shidaalka xun keenay dalkii soo geliyey baabuurta iyadana looga qaadana laga sii loogu xukumo ayaanu ka codsanaynaa madaxweynaha in loogu xukumo gaadiidkan dadkan shidaalka qashinkaa ku shubaya haama ee keenaya waddanka dunida fadqaralayn iyo dunida baabi'iyey baabuurka iyaga hana loogu xukumo iyo gaadiidka iyagan baaba'ay geerashada yaalla aanu la tuuray ayaanu ka doonaynaa madaxweynaha in loogu xukumo waxaanu leenahay war ha laga warhayo dunida waxa soo gelaya oo ha laga shaqeeyo ha laga warhayo dawladda ka warhayso madaxweynaha waxa loo doortay dalkeenu ka warhayo waxa soo gelaya waxa ka baxaya waa in laga warhayo madaxweynuhu ka warhaya isku soo wada xooriye wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaan ilaa hata wax jawaab ah ka bixin dhaliilaha uga imanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco